dacwalay maxaa ka dhacay maanta si kooban haddii aynu u dhigno waxaynu ku sheegi karnaa in hirgelinta sarreynta sharciga dawladnimada DDS iyo ku soo dabaalista xasiloonida laga fuliyay deegaankaas dhaca xuduudka degmooyinka Yoocaale iyo Xarshin ee deegaanka Soomaalida aroortii jimcihii la soo dhaafay ay ahayd kolkii laga warhelay in ay dacwalay weerar gaadmo ah xilli habeenimo u soo gurgurteen xoogag hubaysan oo argagixiso iyo sariflayaal dheef ka doonay dhiigga shacabka iyo ciidanka deegaanka Soomaalidu kuna hagoogan magac qabiil ayna gumaadeen saraakiil iyo ciidanka deegaanka Soomaalida ee halkaasi u joogay dhexdhexaadinta iyo walaalaynta shacabka ay xurguftu kaga dhaxaysay deegaankaas kadib falkaas waxshinimo ee ciidanka ay u geysteen waxay xoogagaasi maalmihii la soo dhaafay sii wadeen ihaaneynta iyo meel kaga dhaca sharafka ciidanka iyo dawladnimada deegaanka Soomaalida iyagoo si weyn u sii carinayay kicinta qabaa'ilka iyo ku maxaafsiga magacyada qabaa'ilka sharafta leh waxaana nasiib darro kale ah in ay isbahaysiyaas hubaysani ee ku soo duulay shacabka deegaanka Soomaalidu ay dhagaha ka fureysteen talana ka qaadan waayeen salaadiin iyo odayaashii maalmahan aaggaasi u joogay ergada nabadeed taas oo keentay inay odayaashu iyo salaadiintu ugu dambeyntii ka fartaagtaan una baneeyaan saaxada sifa ay dawladdu aaggaasi uga hirgeliso sarreynta sharciga iyo qabka dawladnimada una sugto ammaanka xuduudka dalka iyo deegaanka ugu dambeynna saaka ay fushay tallaabada sarreynta sharcigu waxaana judhiiba la sifeeyay xoogagii argagixiso iyo isbahaysiyadii ku soo duulay shacabka iyo dawladnimada deegaanka Soomaalida iyadoona ammaankooda si buuxda loo sugay shacabkii maatadii iyo suldaamadii nabadoonka ahaa ee aaggaasi ku sugnaa hadda dacwalay waa nabad dawladnimaduna way sugan tahay xuduudkii deegaankana shaydaanka laga naaray oo la tirtir xoogagii argagixisada